لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم نبي يدا عرب كودا لغو نعضري ومركاد كتبتي لغو سو دجيه نبي داود كتابكي لغو سو دجيه زبور يا كتابكي لغو سو دجيه نبي عيسى إنجيل labadaba nacdashan ay ku mutaysteen kuwa sidan yeelay nabiyaduna afkooda ay ka cadeeyeen oo carabkooda ay dadka ugu sheegeen oo waxay cilmi ahaan ku hayaan buha sababta nacdashan ay ku mutaysteenna waxay ahayd macsiyo iyo dambi bay sameeyeen iyo xad gudubka macsiyadina dhaqan bay u noqotay dambigii looga digayay waana xad gudbeen waxyaabaha laga raacay ay ku halaagsameen waxa kamid ahaa kuwa culimada ah ee iyagu gafka aan sameeyeen laftigoodu waxay ka gaabsadeen dadka inay gafka u diidaan oo doorkoodii ay qaataan kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuhu labi'sa maa kaanuu yafcaluun waxay ahaayeen kuwa aan isu diidin reer banu israa'iil iyo kuwii raacay nebi muuse iyo kuwii raacay nebi ciiseba munkarkii iyo xumaanta isumay diidi jirin waxay faleen xumaa marka qolo xumaantii sameeyey iyo qolo ka aamus intaasay u qaybsameen marka labada qolo isku dooni u bay saarayeen way wada degayaan ma kala hadayaan rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam wuxuu inoo sii fasiray macnaha aayadu ay sheegayso waxa uu leeyahay markii ugu horeysay nuqsaanta iyo hoos u dhac ku dhacay reer banu Israa'iil waxay ahayd marka dadku ay dambiga sameeyaan shaarica iyo goobaha la arkaya ay ku sameeyaan kuwooda iska ladani way u diidi jireen ama culimadooda waxay oran jireen war waxaan waa dambiye iska daayay maalinta labaad bay u diidayaan war waxaan ilaahay ma ogola waa dambiye iska daayay maalinta saddexaadna way quusanayaan waanay tanaasulayaan markaasaa fa yakuunu qaciidahu wa akiilahu wa jaliisa wuxuu noqonayaa mid la fadhiya oo wax la cuno wax la caba oo iskala qabsada kii munkarka sameeynaya raali ka noqonaya halka inna awwala ma dakhala naqs fi bani israa'iil nuqsaantii ugu horeysay oo sudhici halkaas oo ah marka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam umada wuxuu ku dhiiri gelinayaa inay xamaasad diineed iyo qiiro iyo xumaanto ka dhiidhiyaan inay intaaba yeeshaan oo umada aynu kaga duwanaano marka wuxuu lahaa xaqa weydin isfariyo xumaantana weydin isu diidiyo qofka xumaanta sameeya waa ina u diidaan oo xaqa ku dabartaan ayuu markaa inagu waaninaya rasuulku sallallahu alayhi wasallam marka arintan umada islaamku ay cisigiyo sharafta ku heleen ummadaha kalena ay kaga horumareen waxa weyn ay hirgeliyaan oo ay oogaan baabka loo yaqaan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar inta dadka wanaagana la faro oo la isu kaashado xumaantana loo diido arintaas ilaahay ku amaanay ummadan kuntum khayra ummatin أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله حتى إيمان كذا لقى سهر رئيسي إيمان شرا يا متشرا والشيخ يا والناقص يا وقون يا إيمان دي باب كله وايو وحمان تلقى رالي النوضة نفتنا هو ضعيف مركز حمانتي اسكاك فريستات رالك نقطة أديك اللفت هذا حمانية إلا وحي وحلوه بهاي التلال أدي إمك عذر يمادو cudurkaas wuxuu u baahan yahay dadka inta aan qabin in laga talaalo inta qabtana la karantiimeeyo waba inta al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wa inta kuwii qabay waa la karantiimeynayaayo wacdi iyo waanana waa la isugu daraya haduu aan fici waana xabsiga lagu xidhaya waa karantiimo dadka inta kalena waa laga talaalaya talaalkani waxa weey digniinta la siinayo dadka la leeyahay ruuxaas waa waxaasa laga qaadaa waxaasa lagu dambeeyaa war iska ilaaliya war ka jooga dabeetana dadku way ka baydhayaan ilaa macaasidu waa sida jaraafiimta bakteeriyadan cudurka keenta un bay la mid tahay macaasidu ummadaha hadiya jeer waxa halaaga macaasida dadka waxa halaaga cudurrada marka haddaad fahmi karayso luqadii cudurkii jirka ku dhici jiray iyo karantiimadiisa iyo talaalkiisa iyo caafimaadkiisa iyo dhakhtarkiisa tanna waa inaad fahamtaa oo aad uga qiyaasataa marka maantana waxaynu odhan karnaa waxyaabaha inaga daciifay buu ka mid yahay baabka wanaag la isfaray iyo xumaan la isu diido hadii saa lagu sii socdana halaaga badanaya sida uu nabi maxamed sheegay calayhi salaatu wasalaam oo dadkiina waa ka nabigu ku tilmaamay in dooni kaliya wada saaran yihiin marka qofkan macsiyada sameynaya doonidii buu daloolinaya dubayaal buu la dhacaya faash buu ku daloolinaya markastuu macsiyo sameeyo dib buu ku dhuftay magaaladeeni ama dalkeeni
marka in la daayo maahe waa in laga dhiidhiyaayo waxaan laga soo horjeedsadaayo qofka had iyo jeer xumaanta samaynayana waa sidii shaydaankii ilaahay uu ku sifeeyey khannaas mid iskaabinaya oo isqarinaya markuu arko waxaan in la diidayo uu iskaabinaya uu shiikhaya marka kalena madaxuu la soo kacaya hawshiisa uu ka howlgelaya uu hirgelinaya wallahu subxaanahu wa tacaala aclam